إلى ودراري على بنين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم maanta taariikhdu waxay dul oganaysaa 7 bishii June 2019 hagaag halka saacaduna waxay soo xangajaabtay barroosinka ay dhigatay kowdii iyo rubuc waxaanu joognaa beerta nabadda ee magaalada Muqdisho gobolka Banaadir Soomaaliya waraaga la xaway baye saaxiibay waxaan doonayaa bal horta inaan idin ka warramo hal xiraayaasheen iyo su'aalaheennii horta nimayaan idin warramay ee shalay toole meel wax isku weydiinay waxaan joogay meeshii la oranayay Saybiano Muqdishona wallahi hadii kaamira la dhaxmar hawsheedu ma yara hadda injineer tahliil baa hadda kaamirada ay hayo farsamadooda ayaa waxaan garanayaa labadayada xabadna lagu weeriyay waa meeshii hay'adii sheegay warshada caanaha markii xabadina lagu soo riday baa tahliil hadda waa kay hor fadhiyo waraa kaamirada intuu tuuray inuu carruur ka yaabay annageedii hore halkan aan fooda dhigay markaas aan lagu riday tahliil waxaan arkay waa wareey cagaha wax ka day arma biciid baa orod dheeraayay horta maalina waxaan arkay tahliil oo toori la gaaday waan ka jaraa waxa soo dhan kuwa ma badacayna in tooriyayaanba wariyaa la yahay oo muslima nimankani waxa la yiri kaamiradan gaal ay u duubayaan gaalo bal waxa lagu soo akhriyay dadkii day niman gaala bay ka soo iibsanayaan ninka wuxuu nimay inay tooriyayaan damcay wadaad wuxuu xoogaa dadka diintu yar madax martay maxaa nimanka u tooriyeen gaadhay baa la yiri wuxuu waxa la igu yiri sawirkan ay qaadayaan gaal ay ka soo iibsanayaan ilaahu wadaaweyn haddaba Muqdisho in maad reeyalo kaamira la dhex maro hamoodina day geesinimo baa loo geynaysaa hawsheedu ma yara marka shalay meel xaggaas aan joognay isku soo wada duub hal xidhaalaheeni aan idin ka dhaco horta waad wada garateen waxaan islahaa dadkan aniga daawadayaashayda dhageystayaashayda waa reer magaalo geel ku gaadbaan lahaa walaal kadib geel xaqiisa idin ka mari maayaba war waa saddex xalaad baad kulli wada tidhaahdeen niba geel ka luma waxa la geelaagu misooha wuxuu yiri hal laba ka horeysay hal laba ka dambeysay hal laba u dhaxaysay wallahi way soo taxay saddex xalaad war mar baan war ku niyo xidaalada ma baa weydiinayo haddana waxaan waan weydiinay naga tagnay maxay yihiin aan taayran aniga xadeynay la billahi haddaan idinku dandaaminaya maanta xidhaalahan idin hayo ya de marka caadi tahay xaaladda meesha beerta nabadda kaliya xal xidhaal laga hadli karaa muwaalayaaniyo shalay toole kala orod meen ku waran shalay wax dhacay yaa musliyo waaye maanta waxaan idin hayaa hal xidhaalaha taalada dhagax tuur ninka loogu magac daray magaciisa saddexan baan idin ka rabaa ninkii lagu magacaabay dawladda maxaan siyaad daray ku magacawday nin geesi oo dheer oo madow buu ahaa iyo manaha dhagax intuu la boodu madaxa qaadi jiray Talyaaniga markaas Talyaaniga oran jiray ayuuta allora ayuuta da fratelli illa garana una rose Hitler wuxuu ma taqaan haddaan aniga Talyaanigu ila jirin buu dagaalkii labada adduunka limeeba jabiyeen Benito Mussolini aftabaro avanti aiuto avanti wero waxaan iska celiyaan kasaarka iyaga si yaacay awowgin feedaal laga cada hadda waxaan idin ka rabaa ninkii loogu magac daray taalada dhagax tuur nimay waan idin ka rabaa soo qora magaciisa saddexan ma gaar rabaa taariikh la dilo waxa kuma weydiin walaalo markaan inta kaga gudbo waajibkii iska rigaya wadaniga ahaa qashin waa god ku aas ama gaariga saar ilmaha reer mariga wada dabadhaha qashin waa god ku aas ama gaariga saar hees baan ka dhigaynaa qashin waa god ku aas ama gaariga saar qashin waa god ku aas ama gaariga saar qashin waa god ku aas ama gaariga saar qashin waa god ku aas ama intaas ka gudbina qashinkiisa ni walaba inta qashinku ku jira iyo cudurku ku jira hal xidhaali kale mid kale iska ridina waajibkii wadanimo wadal waa burburo dib u soo kabanaaye ruux wala u badalaal ruux wala u badducee ruux wala u damacaaga iyo dookhaaga u kaadi oo danta guud ka shaqee Soomaali waa dad xigaalo bari bay dirireen dadkii waa la baqtiyay dadkii waa la isu geeyay iska daad xushiyada dambaskii la xabaal war nabrihii aan daweynay inta aan ka dadaalo ilma adariyaalo waryaynaan dib u laaban malaayiin qoys noqday weeye Soomaali waa mid qureeta iyo midhageed kaligiya moorada ka dhaxayso wadadan kala maarmin ee adduun waa ismaciinsiya isku mowqif ahaada saddexda hal ku dhagban leena oo dib soo kabashada ay dagaaladii sokeeye la soo maray
كسو قدو هذا برنامج كان هرين بشدو محي هذا الحين بانقليا ايجا اجا وابن كو داهيه حال قاتل ما ريالو هذا انقليا ذكر غير مقدشو ما تضي انت واق بريي داي اكس كنترول بان تغي ميسانka dhuxusha waan tagay warday correspondent magaalada dadka qaar baa waxay moodayaan inaan idin soo gudbino waxa dad ku sheekaysanay oo reer muqdisho wax ku kala qarsoomayaan ila barnaamijka saaxiibadii muqdisho dhaba wada dhageysanayay haddaan maanta idin sheegay waxa lagu sheekaysanay bari ay iga dhageys warayga leexdo qoladiina reer Minnesota iyo kuwina kale Australia jooga iyo kuwina reer Jowhar iga leexdaniyo haba sheeg ma warqadan xariisanay iga leexdaniyo waayahay igu qaata qorfiya hilbaan isku daray waayahay wuxuu ma taqaan waaykan eeg dadku maanta waxay ku sheekaysanayeen muqdisho oo guri soo dhaafo ceeb bay ahayd waa la isku qabsan jiray dawladda guri ka soo hormaraya dariiqa soo aadaya waxba ku darsaday hadduu doono 40 sentimitir waa la isku qabsan jiray hadda guri baa soo baxaya guri kale soo hormaraya waxa imanaya kii gudoomiye ku sheegay degmada iyo kuwii dawladda hoose ay imanaya taxi baa lagu leeyahay markaas kule waraa halkan dhisku waraa adiga ay tagnosi kasal numberku waa imisa war Soomaaliya habar ba ku dhacay ma riyaa numberka noo sheeg hada guriga wuxuu soo galay eeg quruxdii caasimadda iyo sharciga wadooyinka nidaamkii qarannimo dhan buu guriga dumiyay salay ay tagnosi bismillah ay numberka $100 baa loo turay ama laba خلاص waraa waa dhis kartaa ka wareeg eeg caadi ka noqotay magaalada arintaasi waayahay ka soco arin kale aad loo hadlayaa oo cajiiba ilmaad riyaalow baabuurta ciidanku saaran yahay ee dawladdu leedahay waa baabuurta bilatariga ama ciidanba noocda ma qoryaha wata wadada marka ay marayaan shacabka waxay ku ridaan argagixiso ee bajaaj hadaad saaranta bas hadaad saaranta gaari caadi oo rayid hadaad wato isagoo la muturuska kugu dhufanaya markaas ku qoryaha saarana hal mar kooranya wadada badalgeeyo markaas argagax wada qaadaysa inna lillahi dadkan gaariga wata Soomaali ah wallahi inaadan odhan markaas naagta haday uur lahayd haday dumarkii baa qaylaya ay ka baxdo wariya inta mar laga soo bado qoriga dabadiisa la dhacaya alla inaad gawaaridaas waa argagixis caadi ah shan farood iyo cali xoog bay wadada ku maraan dawladdu waa aragtay dawladdu waa saaran agaasimo waxa saaran 4.5 ku yimid oo la iqra walaa yaktuba yaa dhex fadhiya oran maayo war dadka seen hawla dhaqmina shib mobile bis kaga mashquulsan Facebook ku jira ciidankiisa kor saarana dadkii bay leynayaan shacabkii ma ogaba la xadhu kana coliya abaar moog taana waa la hadalhay waaye baakasi ciidan waxa soo baxay la baakasi aniga ciidamada inta badan waa yaqaan waa baandhiirane bari baa waxaan duubay filin la yiraahdo askari yani qaran ma difaaco ciidamada bay gula saaxiibay laakiin filinka kadib ciidamada la sameeyay baa jiroon aqoon hal ya baakasi shalay meel halkii ay ugu qabteen waxay ugu qabteen meeshii la baar fiyaad markaas aan wariyadahan warbal birtayga qaaday waa baandhiirane salay baandhiirane yaa la yiraahdo saan uma baakasi baa haydan aniga baakasi baan aqoon indhaha isaa wada leeyihiin ma ciyaal yareero meelaha laga soo ururiyo laba qoriyo qaada la cunay markaas la baandhiirane ha maxaa tahay saan maxaa tahay wariga ilka dhaadheer fayay gelin difal ku badi maxaa tahay qorino wata kan caal idinku baakasi baa la ilaahay baan ku dhaartay iska ridaan xabada kaaga daran markaas la yiri xabada soo aniga riday kan aan riday qorigan waxa ka riday waxa soo riday ma ku dhici gaadhay fogayo ba taana wala hadalay waaye taliyaha qaybta booliska ee gobolka Mudug baa isaguna wuxuu qabtay naag nin iska dhigtay oo labisatay nin baan hayba timi injiriya balay soo xirato naagahan bay inta nin isu soo gisay naagaha dharka ka furiyo injirka ay xun bay ku daldali baa la ilaahu wada weyn waahid ruwa akhru saban naagti hubbay wadataa balaayana way wadataa iyo wax kale la garan waayo nin bay soo kaysiinaysaa markaas magaaladii waa waray ciidankii baa soo qabtay warta balaayi injirka laga soo furay iyo hubay wadatay maxaad waxan ka waday yaale shib taliyaha qaybta ma garanaysaa waa nin la yiraahdo nuur kadaar baliya taliyaha qaybta bal hadda waa tan nalay kale saacadu markay ahayd 10kii barqanimo ayaa waxa la soo qabtay nin lagu magacaabo deeqo aad arkaysaan deeq la yiraahdo magaciisa ninimo uu ku sheegto laakiin magaciisa dhabta la yiraahdo deeqo Cabdullaahi Aadan oo in muddo magaaladan ku noolayd
oo matalaysa inay nin tahay dumar badanna xiriir la yeelatay sida aragtaan hubaysan oo magaaladan muddo badan dhex maraysay iyadoo nin ah waxaan ku guulaysanay inaan helno muddo dheer ka bacdi inaan gacanta ku soo dhigno deeq oo magaciisu deeqa yahay inta liigu soo eedeeyey waa ejidha dumar baana qofka waxaan u watay dukaan baan leeyahay dukaankan ku waardiyeysta meel go-aan meel koondhara ah qofna kuma dilaano qofna wax kuma yeelo gabadhan gabar cunug iyo ayadoo nafteeda halidaysa baan gurigeyga keenaano waayahay bal naagtaan intaan kaga gudbino bulshadu aad bay u hadalaysay iimaanka alla ka qaadaas deeqa cabdullaahi baa la yidhaa alla guriga abbi gabar yaroo mayda oo laga helay meeshii la odhanayay in adeerow magaalo nabadeed bayba ahayd meeshii la odhanayay cadaado cidi kaama leh gabar yaroo mayda oo laga hela uun garowga dushiisa iyo gabar yaroo mayda oo gaalkacda laga dul helo iyo gabar yaroo mayda oo cadaada laga dul helo war filinkaa miidaan ka baasin horta qolyihiinaasina in maadirayaalow cadaaladii aanu baryahan saaxiib baan laahay wallahi maantaan idinka goostay dee gabar yar laydinka dul helo mayda dumarku waa raashine miyaa la dilaa waa raashine horba baas saldaata dumarku inuu lama laayo aniga cadaada maanta ay ugu dambaysay nin iga leexdaniyo xaafka idiin soo qaxayna ma aqaanay walaahi nimankii aan wadaadadii timaweyntii aan caayay dhuusamaree baan iska aadayaa saacaddaa laga bilaabo gabar yaroo maydaa laga dul helay maxay tahay war naga leexdaniyo taana waa la hadalhayay Omar kii la odhanayay waa wasiirka duulista hawada kanacaan la kugu rid kii baa warqad qoray maanta baa la yidhi taasi dad ku sheegaysanaya wuxuu qoray hay'adaha xalana joogiya meelaha garoonka magaalada muqdisho ha odhanin garoonka waxaad tiraahdaan garoonka aadan cadde intaasuu mashruuc ka dhigaya warga tag bari baa iyadii oo dadku islaynayo masaajidada agtooda meydku yaallo yuwadaad yari kacaya markaasay odhan jireen farta marka la xisaabtanaya farta hal la dhaqdhaqaajiyo war maxaa far la dhaqdhaqaajin meyd baa banaanka yaalle daddan la aasin baa banaanka ilaah bay masaajidka dabadiisa far la dhaqdhaqaajinayo ka hadlaya bal hadda Omar kanday dalka waxa baahi taala wuxuu u qorayaa xaanu warqad u qorayaa wuxuu leeyahay masaajidka muqdisho aan idhaahdee garoonka muqdisho ha odhanine garoonka waxaad tiraahdaan bujobajaaq garoonka aadan cadde muqdisho kala wadwadaa warga tagna waxay la imaniyo taana waa la hadalay wasaaradda arrimaha gudaha waxa la yiri Soomaalidu ay ku maamaadaa sir markuu hagaagtaa kolbay siriq ku galisaa sababtaada noqotaa nabadii nolol baa baryahan doob dhabaysay waa wareey waxay soo xoreysatay baydhabo ka wareeg iyadoo dastuurka ku tumanaysa iyadoo wixii lagu heshiiyay ee Soomaaliya ku heshiisay 30 sano ay Soomaaliya dagaal ku jirtay 30 sano faraha la iskaga gubtay 30 sano in dib u soo kabasho ku jirtay wixii oo dhan la eegi maayo nabadii nolol oo saa u doob dhabaysa yaa baydhabo waxay geysatay lafta gareen nin meeshanana oo waara la yiraana andhuufay ka qaadeenoo kaniin bay u qoreen galmudugna agtay soo mariyeen waxa waa dhay Puntland iyo Jubaland bay markaa xalay ku qaadeen bahal warqada nin baa bari wuxuu yiri walaay bileebi siciisu ku yiri hila walba ka cabtay tan waa tii xaas ka qaadi lahaa waxaan ka wadaa Soomaaliya dastuur bay ku heshiisay dhigatay dastuurka in lagu tunta maaha Axmed Madoobe haddii la dooran waayo iska tagi haddii la doortana Jubaland isaga ka talin laakiin warqada hanjabaada oo looga qoray Muqdisho waxba ma soo kordhinayso waxun bay sii hadlay taana waxa ka jawaabay wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland waa Darwiishe oo yidhi amiyaan garan wuxuu yidhi nabadii nolol ma kaniin ka cuntaa wardayna dhaaf wax noocaad warda nacasnimada nala dhaaf haye taana waa la hadalay baliga miyaad maqashay wasiir Soomaaliya oo cabay miyaad maqashay oo intuu ka soo dhargay baashi khamri iska hadlay waliga miyaad maqashay ana maanta idin hayo waana la hadalay waana dila daawanaysa wasiir Soomaaliya yaa malaha dhalana soo cabay dhalo ayaan mushir jiraad qabtay isagoo bastii oo dhacdhacaya hadda ra'iisul wasaarihii dalku
dalka dibaddu uga baxay 12 bari buu dalka dibadiisa ku maqan yahay galmudug baa waxay noqotay dalka dibadiisa adduunkaas aad nafsugaysaa ninka adeeg Ahmed Ciise Cawad baa la yidhaa waa wasiirka arrimaha dibadda barigii kamaalka shuqina dhaladaas u cabbay maantana dhala kale u cabbay war wasiiradeenu intayna bahasha cabbin baaba la roonaa nabadiyo nolol hadda waxay keentayba intay dhala soo muudsatay hal dhala cabto inay iska hadasho malaha wasiirka arrimaha guduhuna xalay markuu Jubbaland ka hadlayay isna dhal u cabbay baan u malay Ahmed Ciise Cawad bal waa kan hadda ileeg waxaan sidoo kale u sheegay qodobka labaad in ra'iisul wasaaraha uu muddo 12 bari hadda ah uu dalka maqan yahay oo galmudug ku maqan yahay waa muddadii ugu dheereyd ee ra'iisul wasaaruhu uu dalka dibadda uga maqnaado qodobka xarada ninkaas wuxuu ku hadlayay ma ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dalka dibadda uga baxay nabadeen nolol hadda boota bari bay yiraahdeen baa leeyahay habar jeclay Muuse waa kaas waaye arrin kale oo cajiib ah iyadana la hadalay waa siyaasi kale oo ma oran karnaa ma oran karno yani khamri baa cabay lama oran karaba tii hore baba dhaantay Ahmed Ciise Cawad ka dhaami kan waxaan oran karaa xabagle ama ciyaal kooladii caagadda war caagadii ay dhiiba muslima kuwi ma garanaysa ciyaalkii caagadii waa Faysal Cali Waraabe xabagle bal ilaahay baan idinku dhaarshay ninkaas wuxuu ku hadlayay dhageysta qabiilka iyo baktiga iyo maxayga bal hadda ila dhageysta waa kan xabagle Faysal Cali Waraabe waa kan dhageysta reer iyo halkan degan Maxamuud Saleebaan ayaa isna inoo hanjabiyay halkan degan ku sheegay Maxamuud Saleebaan waa Cabdi Ciise ka badan waa daga Cabdi Ciise maamul bay samaysteen ya dawlad bay iska dhigeen ya Puntland bay la baxeen inaga baa Soomaaliya sanaag baan xoreynaa Soomaaliya ma hortama yaqaan Suudaanka ay warsigeen waxa leeyahay war wala Maxamuud Saleebaan aan wax ka aqdicinayn dhulkaaga dagaal ka gelin yaa noqon sanaagta bari dhul lagu reegdibo yaa noqon wa xaraan bay ka tiin xadka Soomaaliya bedela oo Maxamuud Saleebaan ay bedelaan subba baa iska sheega hadda durbaanka qabiilka la joojin waayo waxaan sheegay Maxamuud Saleebaan dagaalka ay koonfurta ciidanka wad galaan waa niman irira hadan waxa siidagu ugu dhufto maanta siidiga hadan ugu dhufto in sandwich ka dhigi doono xamarku wajho wasaasan u sheegay xamar waa magaaladeedii hadan maanta tago walaal joogay marka aad anaga xamar magaaladeeda naga dumin karo maxamed siyaad baa naga dumin kari waayay ya afartiyada ciyaalkii kureedii Soomaaliya wax ma yeeli karaan barnaamijkeennii horin bulshadu maxay hadal hayeen maanta intaasaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay idin barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa billaahi tawfiiq